Soomaaliya suuq ka ah culayska badan iyo hawsha New Foundation gacanta ku hayay statementkan ama baartan idin sameynayaan ama warbixintan idin siinayaan waxay ugu talagaleen in ay idinka warramaan xaaladda meesha ay marayso si kooban in u hambalyeeyaan New Foundation qaybta UK iyo Yuruba sida wanaagsan ay uga qayb qaataan oo socodka iyo barnaamijka New Foundation ay wado وأفلحي وبرنامج لوجود السنة. أنا جو أسياد على يوسف وذكرنا إنسان هذا واحد جوا بوساسو راح نكمل هاي رجع تاجريش هيك بوساسو شركة بتصنع إنسان نور فاونديشن مركا وحنين صدرنا أمبليو بوجادي يو سيدا أدمان تي أوش أسوه وهلنتي وحاليا على فديا ماليها جود نور فاونديشن سوماليا عبد العزيز محمد عبد الله علوي واه إنك حفيز كمسؤول كا وحاليا على كعية شيخ عثمان دارة شيخ عثمان محمد دارة وأصلنا ورمارها يو معمولها لبعض حفيز نور فاونديشن سوماليا فجأة هوش عريس كذا على ركين ما رأيت هذا الإمام كذا قاعد كويوي ومعني والله حالة نور فاونديشن وإنت سوماليات كلا شيء إنت سويسكول أفر سكول قاعد كويو ومعمولها وتوجهنا حالة دي بحد من زي اللي قاعد كويان أربعة وهم منين أربعة وهم هنغينا إذا الآن صار وحص عملها نور فاونديشن ما كويس نشوف مرة ونقعدين مرة وان سلام يا مركله أربعة ما رتيني ينكو وهنغينا سلونا سنة ولا بعد نور فاونديشن على تقول إيش نيا عبد العزيز والحين كون نور فاونديشن ويسير إن شاء الله أشكر. ومحسنتها سير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وهران مع سلام يا جالية نور فاونديشن UK سلام إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب وعن هذا وفرح سنة هاي معناتها هنا مثلا هذا الجديو جالية نور فاونديشن UK run ahaantii waxyaabaha qabateen lama soo koobi karo wanaagsan baa qabateen hawsha meesha laga haayana kulley waxa way warbixin badan waa ka haysaan laakiin waxaan rabaa warbixin yar inay idinka siiyo hawsha aad fan ahaan aad u taageertaan meeshay marayaan iyo xaaladdu siday tahay Nur Foundation waxay gacanta ku haysaa haddeer afar iskuul iskuuladaas oo mataqaanaa ay sheeg ku kala yaalo saddex degmo degmada Qandala degmada Baldhigan iyo degmada Shuban iskuulka ugu horeeya wuxuu ahaa iskuulka Qandala oo lagu magacaabo Cali Faaye Geedi iskuulka kale oo Baldhigan iyo Alxaaji Cabdullaahi iskuulka Timishe Sheekh Nuruddin Cali Culow iskuulka Xiriiro Maxaa Ismaaciil Dawaarik iskuuladaas tira arday waxaa dhigata kun ka badan kun arday baa wax ku barata haddii aan mid idinku sheego iskuulka Cali Faaye Geedi waxaa dhigta 280 arday iskuulka Xaaji Cabdullaahi Baldhigan waxaa dhigta 450 arday Sheekh Nuruddin Cali Culow Timishe 180 Maxamed Ismaaciil Dawaarik Xiriiro 210 baa dhigta shaqaalaha 45 ka badanna way ka shaqeeyaan oo macallimiin iyo shaqaalaha hoosaad isugu jira iskuuladaas lacagta ku baxda oo billaha ah waa 13,510 sanadkii haddeer la soo dhaafay laakiin sanadka soo socda waxaa ku dhici doona koror sababta kororka ugu dhacayana waxa weeye sanad walba waxaa siyaadayo fasal tusaale ahaan Baldhigan oo kale waa form 2 haddeer sanadka dambe waa form 3
iskuullada kale waa la mid fasal siyaadayo kulama fasal siyaadana macallin siyaadayo wax loo yaqaanaa jiro mushaharada waa iskuullada isku xirayeen xagga mushaharada boosaaso oo kale haddii wax lagu daro annagana saameyn ugu yeelanaysaa waa ku daraynaa sidaa darteed waxaa laga yaabaa sanadka dambe inay gaarto 15,000 bil kasta oo mushaar joogto ah weeye qarashadana waa ka madax bannaan yihiin qarashadana waa arrin kale oo mataqaanaa intaa waa mushaarka rasmiga ah weeye markaan dheer sanadkii haddeer ahaa iskuullada waxaa ku baxayay 13,510 waxaa ka soo xaroonayay 6,500 6,500 markay ka soo xarooto la kala jaro 7,000 iyo xoogaa baa la kabi jiray bishii 7,000 iyo masaajid baa si joogto ah loo kala jiray runtii barnaamijkaas waxaan aad ugu mahadcelinayaa marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad jaaliyadda UK oo haddeer marka la fiiriyo ka qayb qaadashada xagga fanka kaalinta labaad kaga jirto marka laga yimaado Dubai runtii deegaanka uu idin hayaa iyo iskuullada iyo degmooyinka iskuullada ka shaqeeyo abaal ballaaran buu idin hayaa insha Allah marka haddii aan intaas kaga gudbo dhaqaalaha ku baxa iskuullada waxaan u gudbayaa dhinaca mataqaanaa iyo waxbarashada Nur Foundation waxay samaysay waxbarasho tayo leh in meesha gaarsiiso meel walba iskuullada waa iska jiraan la furo marna la xiro laakiin iskuul habaysan oo mataqaanaa ay sheegeen iskuullada la jaan qaadi kara iskuullada boosaas ku yaala waaweynka bay fulisay taana waxa lagu fulin karay wax kala ma ahan waxa lagu fulin karay dhaqaale fiican oo lagu bixiyay marka aadan mar labaad ugu mahadcelinayaa jaaliyadda waxaan kaloo rabaa inaan mataqaanaa jaaliyadda ugu bishaareeyo barnaamijkii aan ku dacmiysay dhaqaalaha barnaamijkii miro dhal inuu yeeshay oo maanta lagu diirsanayo deegaankana waxa weeye insha allahu nabaalkaas waa idin ogyahay waana ka warhayaa macallimiinta aan xulno waxaan ku xulnaa macallimiinta shahaado dugsi sare ugu yaraan ilaa ay heer jaamacadeed inuu wato hadduu dugsi sare dhigayana inuu jaamacad wato waan ku xulnaa macallimiintaas waxay ka qayb qaataan qaybo kala duwan oo mataqaanaa ay sheeg horumarka deegaanka ah ka sokow wax dhigista ardada waxay ka qayb qaataan waxaa ka mid ah diinta oo kale masaajidaha oo mataqaanaa kitaabo ay ka akhriyaan ay ka dhisaan xagga diinta iyo thaqaafada waxaasoo dhan waxa weeye maadaas waxaa leh waxaa leh Nur Foundation qaybaheeda kala duwan sidoo kale kun iyo masaajid ardadaas ka kooban maanta alxamdulillah way noo soo baxayaan laakiin haddaan Nur Foundation aysan barnaamijkaas fuliyeen waxaa soo bixi lahaa kun iyo masaajid arday oo mataqaanaa oo ah arday aan waxba baranin oo jaahiliin ah waxaa soo bixi lahayd taasna dhibay keeni lahayd intaasaan aniga kaga baxaya waa soo gabagabeynaya waxaan kusoo gabagabeynaya insha allah ku xijinaya ku-xigeenka maamulaha Nur Foundation محمد عثمان العيال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنت UK محمد سبوت جريسة نور فونديشن وأمها النغيا وحنا ليها جزاكم الله خيرا وحفي عن باس ميسان ardada iskuulka dhigato oo 1,043 meelahaas ah haddii aan gacantiina aysan helin maanta waxay ahaan lahayn qordhuuq waxay ahaan lahayn barcadbeed waxay ahaan lahayn kuwa lagu adeegto oo haddii la doono argagixiso iyo waxyaabo dhib iyo dadka iyo dalka u keenaya lagu hago laakiin taakuladiina iyo gacanta u fidiseen awgeed maanta waxaa noo soo baxaya barofesoro injineero dictooro dadkooda dalkooda anfacay marka abaal weyn baan idin haynaa haddaanu nahay maamulka Nur Foundation dadkuna waa la mid waxaanu rajaynaynaa inaad hawshaas sidaa ku wadaan oo idinaan ka caajisin dawladbixintii maamulaha iyo siyaad baa hormariyey anigu intaas ayaan idin sheegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddeerna waxaan wixii doona waan kusoo dhaweynaynaa maamulaha dugsiga ugu horreeyey ilaa iyo cali faaye geedi oo la yidhaahdo Ismaaciil عمر محمد فريد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي إسماعيل سعيد عمر كاشويتو
aad u mahadsanyihiin waxaa weeye fadhii ugu horeeya dhimay hadalka anigu waxaan maamulihii iskuulka yani degmada qandala ee cali faahiye ninkuu horreeyey oo tabiiciyaan ahaa oo magaranaysa dee halkaasi ka howlgala waxaan u tilmaami kala maha inaan dadkeena iyo deegaankeena aan dib ugu celino aqoontii mataqaanaa iyo waxyaabihii loo baahnaa runtii iskuulkaasi waxaa dhigta arday gadaarka 280 siduu sheegay maamulaha cabdicasiis 280 kaas waxay isugu jiraan arday dhigata dugsiga hoose dhexe ay isugu jiraan oo weli dadka runtii deegaankaas wuxuu ka mid yahay deegaanada mataqaanaa dib dhacay oo runtiina magaca lahaa magaca weyn lahaa degmadaasi magac weyn bay wadataa ilaa 1900 iyo wixii ka horreeyay lixdamaadka waxay qaadatay mataqaan degmo waxaa weeye Nuur Foundation la-aanteedna waxaa weeye waxba kama hirgelin lahayn Nuur Foundation ayaa waxay kusoo celisay eleyskii garanaysaa waxay kusoo celisay iyo horumarka waxaa arkaysaa marar qaybta markaa weydiis dadku waxay u joogaan keliya carruurtaas iskuulka dhiganaysa ayay u joogaan meesha waxay ka yimaadaan badanaa meelaha degmooyinka mataqaan ku xeeran ama tuulooyinka baadiyaha miyiga ayay ka yimaadaan waxay u yimaadaan iskuulkaas labadaa bilood ama sideeddaa bilood iskuulku u furan yahay ayay u joogaan wax kale u joogaan magaalada iskuulkaas ayay u joogaan waxaan moodaa baahidaasi inay horey u qabeen ayna baabi'isay Nuur Foundation runtii Nuur Foundation waxyaabahaas dhan waa loogu mahadcelinaya deegaankana magac weyn bay ku leedahay dadaalkiina insha Allah tacaala waxaa kana hore usii wadaan oo intaa mataqaana si dheeraada annagu waan garab taaganahay in magaranaysaa horey awoodda mataqaan dhaqaajisan iskuulku wuxuu qabaa baahi fara badan uu leeyahay oo magaranaysaa uu qabo waa jirta waxyaabaha la qabo inta badan dowlad ma jirto oo wax qabta oo mataqaana wasaaradda waxbarashada oo kale laakiin waxaa la bixiyo oo keliya waxay oo magaranaysaa waa qalabka oo aad u liita magaranaysaa waxaa ka mid ah tusaale ahaan waxaa maktabad ma jirto malaha magaranaysaa carruurta ku akhristaan malaha mataqaanaa computers mataqaanaa oo technician oo carruurta ay bartaan oo magaranaysaa ka faa'iidaystaan waxaa weeye malahan macalinka textbooks iyo waxyaaba mataqaana uu meel u noqdo malaha waxaasna waxaa weeye waa baahi jirta kula jaaliyad waa jaaliyad ballaaran aad baan ugu mahadcelinaya UK in waxaan doonayna insha Allah tacaala ay si farsama insha Allah arrintaasina ay magaranaysaa u eegaan oo ay mataqaana ay gacan qabtaan tan kale oo waxay tahay ugu muhiimsan waxay tahay oo ah inaan fariin in ku sheego Nuur Foundation magaceedu wuxuu ku soo baxay oo magaranaysaa uu kor u marayo wax kale maaha oo dadka ay wax u qabteen dadkoodii ah waxaa weeye waxaan rajaynayaa inta aan magaranaysaa fariintan dhegaysata inay ku daydaan walaalahood Nuur Foundation ay caawiyaan dadka masaakiinta aan waxba haysanin oo iyagu sugaya insha Allah tacaala qofkii magaranaysaa badbaadiya qof jaahil ah wuxuu badbaadinayaa mataqaa ilaahay mataqaana wuxuu kor u qaadayaa haddii in badan buu ilaahay kor u qaadaya sidaa darteed waxaan rabnaa insha Allah tacaala in hawshaas aynu kaga mahadcelino waan ku mahadsantihiin dadaalkiina waan idinkugu hambalyeynayna aad baan u mahadsantihiin asalaamu calaykum Okay.